oo tusaale u noqda maragna u fura taageerana u noqda fooy yaan layna odhan habaarqabaasha xaggee ka yimaadeen khayrqabayaashan xaggee lagu soo tababaray ha la yidhaahdo yaa fadhiisan kartaa madaxweyne warbixintii jaamacadda waa dhagaysaa way uu mahadsan yahay gudoomiyaha jaamacadda Camuud warbixinta tabaqaha kale iyo qodobada uu loo akhriyo dhammaanba hadda waxaynu u gudbi doonaa haddii alla yidhaahdo oo aan soo dhawaynaynaa heestii qaranka oo aynu xagga dambe maxkamada ka diyaarinay marka barnaamijkeenu halkaas inooga sii soconaya haddii la yidhaahdo waxaan soo dhawaynayaa waxad mudana madaxweyne ku-xigeen iyo marti sharafta kale waxaan ku wargelinaynaa ardayda jaamacadda Camuud arday lixdooda waxaad u leeyihiin maaha arday dagaala ayaa ku jira oo jaamacadda Camuud ka faa'iideysta oo dafcaddii saddexaad ay hadda qalin jabinayaan marka arday baa jira turjuma oo luqadda yaqaana sign language-ka la yidhaahdo xuseen ha soo dhawaado ardaygii turjumayey luqadda ardaydaasi dagoolayaasha halkan ay soo joogsan waaye waxaan hore ugu sii socon doonaa haddii la yidhaahdo barnaamijka dufcadahan kala duwan
maanta isa saaran waa dafcaddii koowaad oo kambaska Hargeysa postgraduate-ka ama masterka barnaamijka masterka iyo dafcaddii saddexaad ee masterka kambaska Boorama iyo dafcaddii 16aad ee ardayda undergraduate-ka kambaska Boorama mudana madaxweyne ku xigeen iyo marti sharafta kale takhasus agaasimiye Cabdi Cali baa ku jira waxbarashada hor u joogi jiray waxaan filayaa in wasaaradda qorsheynta inuu ahaa haddana qaldanayn agaasimo waaxeedyaa ku jira mas'uuliyiin kale ku jira madaxda jaamacadda ku jira vice president madaxweyne ku xigeenada jaamacadda mid ka mid ah ku jira barnaamijka masterka waa barnaamij la rabo in jaamacadda guud ahaan uu kor u qaado oo uu xoojiyo undergraduate-ka saa darteed waxaan arki doonaa haddii la yiraahdo in qayb badani ay ka faa'iideysanayso jaamacadda laftigeeda waxaan hore ugu socon doonaa markaan soo dhaweynayaa imika arday ka mid ah ardayda aan idiin sheegayo waa mas'uul qaran waa agaasime laakiin maanta munaasabadan waxa weeye waa arday ka qarin jabinaya jaamacadda Camuud dafcadda koobaad ee kambaska Hargeysa waxa weeye Dr. Cabdi Cali jaamaca soo dhawaado si dareenkiisa hor ayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كسمها مدحوينها جمهورية سوماليلاند iyo wasiiradiisa gudoomiyaasha xisbiyada qaranka qalin jabinaysa dhalinyarada saxaafadda haweenka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii iyadoo la siiyey kelmaddaas waxaan runtii kaga wakiilahay ardayda qalin jabinaysa gaar ahaan ardayda postgraduate-ka guud ahaanna ardayda qalin jabinaysa oo dhan marka annaga runtii sharaf weyn bay noo tahay in jaamacadda Camuud ayna siiso fursaddan aanu ku barannay ama ku qaadannay digriyada aad halkan arkayseen guddoomiyaha jaamacaddu inuu nagu guddoonsiiyey runtii jaamacadda Camuud waxa weeyaan sidaa la sheegay waa hormuudkii jaamacadaha iyadaanu ku dayanay runtii anigu jaamacadda Hargeysa in badan macallinka ahaa waa jaamacaddii aanu ku dayanay weeyaan jaamacadda Hargeysana sidaa la socoteen waxay noqonaysay tii soo raacday iyaduna aynu in badan iyadana ka faa'iidnay oo arday badan inooga qalin jabisay runtii waxaan uga markhaati kacayaa anoo waddanka ilaa intaaba joogay in jaamacadda Camuud ay ahayd tii beddeshay ama hormuudka u ahayd khadkii waddanku ku socday oo ahaa khad waddanku uu abaabulan yahay oo uu u baahan yahay abaabulkasaarka ayay kow ka ahayd jaamacadda Camuud waxa weeye marba nolosha khad baa socda dee waddankan waa la abaabulay si looga dhiciyo dictatorshipnimadii ama kelitalisnimadii marka waa la abaabulay hawsha inoo taalay maalmaha waxay ahayd inoogu weynay abaabulkasaar ciddii ka qayb qaadatay hawshaas ashkhaas ayaa inoogu suntan institutionno ama hay-ado ayaa inoogu suntan ay ka mid tahay jaamacadda Camuud ma ilaawi karayno oo taariikhdaasi way qoran tahay maanta halkana ma doonayo inaan anugu galo laakiin innagoo kale loo baahan yahay inaynu taasoo kale garanno sida maantaba ay arrin muhiim ay u tahay arrinta muhiimka ay u tahay inaynu waddankeenna dhisno maalintaana abaabulkasaarka ayaa kowha marka ilaahay wuu inagu guuleeyey waa bariiqan gaadhay waa sigannay laakiin ilaahay waa inagu guuleeyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa guushii u weynayd bay ahayd haddii aad rumaysan karaysaan oo weliba dhallinyaradiinnan maydaan joogin idinkuye waxay u baahan tihiin inaad taariikhda akhridaan oo dadka waayeelkaa ka dhegaysataan waa bariiqan gaadhay laakiin ilaahay waa inagu guuleeyey ilaahay wuuna jecel yahay mandiqaddana ilaahay waa jecel yahay marka intaa laga yimaado waxaa kale oo runtii iyaduna barakaysan magaaladan Boorama oo jaamacadda Camuud ay ku taallo oo runtii iyaduna ah xarun waxbarasho oo weyn
kaalintay ka soo qaadatay dhismaha qarannimada Somaliland markaynu ka soo baxnay marxaladdii abaabulka saarkana waynu wadoogeen iyadana markhaati baynu ahayn intiina yaryarna waa in laydinku qulaamiyo laydinku celceliyo laydin sheego weeyaan haddiidaan ogeyn runtii waxa weeyaan maanta ninkii si buuxda ugu soo biiray maalinta qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waa ka faa'iiday ama gobol ha ahaado ama degaan ha ahaadaan ama maxaan ku dhahaa ashkhaas ha ahaadaan ciddii maalintaas sagsaagtay ku biirista jamhuuriyadda Somalilandna ilaa imika qiimihii bay bixinaysaa qiimo sare ayay ugu joogtaa inay ku soo biiri waayaan jamhuuriyadda Somaliland ama ciddii lug la soo gashay lugna kala baxday ilaa maanta iyadaa qiimo sare bixinaysa iyadaa khasaare ku joogta runtii waxaan rajaynayaa ilaahay garansiiyo intaa marka laga yimaado anigu runtii waxaan ku soo gabagabaynayaa tayada shakhsiga waxa anigu digrigan waa digriga labaad aan qaato aniga digrigaygii koowaad iyo kii labaad wuxuu ahaa business iyo economy buu ahaa digrigan waa kii labaad waxa weeye education policy and planning ayaan imika ka qaatay jaamacadda Camuud runtii waxay ahayd dhan marka laga eego saadaal aan sidii mala ilaahay baa ku dhameeyay oromaayo garab salaax baan leeyahay ama garab ama maxaan ku dhahdaa waxbaa la ii sheegay oromaaye waxaan markii aan ku biirayay waxaan joogay commissionka la dagaalanka AIDS-ka marka waxaan galay markii hore public health-ka intaan galay baan haddana ka baxay wasaaradda macallin baad u badnayde noloshaada inta badeeda macallin baad ku shaqaynaysay education-ka gal markii hore public health-ka waxaan u galay dee waxaan joogay commissionka AIDS-ka marka waxaan sidii health-ka baraan sidii marka waan ka baxay waxaan u wareegay isla wiig gudihiiba waxaan u wareegay qaybta waxbarashadaan u wareegay markaas haddana agaasimi waxbarashada ayaa laga magacaabay haddana markii aan galay qaybta education-ka ayaa agaasimi waxbarashada laga magacaabay marka waxaan isnimada halkaa ilhaam yar baa ku jiray haddana planning-kaa la geeyey marka planning-ka marka la geeyey mawduucan aan qaatay subject aan qaatayna waa education planning and policy marka education-ka waan soo maray haddana planning-kii baa la geeyey oo qorshayntii ah ilaa hadda waa subject-gaygii uun education planning and policy marka waxaan isii mala policy-gina wuu soo socdaa baan isii waxyaalo badanoo dhan waan soo arkoo kaleo waxaan ku soo gebagabaynayaa yaroo kaftane waxyaalo kaloo laygaga wada leexday oo aan mar dambe idinka sheekayn doono marka xaqiiqoobaana waan idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala oo iyaguna aan isleeyahay way dhaboobi doonaan insha allahu tacala oo sidaas oo kale ciisii muuqday wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waayahay agaasimuhu mahadsan yahay waanan hambalyaynaynaa wuxuu agaasimuhu ku hadlayay afka ardayda postgraduate ama masterta oo dareenkooda guud ahaan isagu cabirayay waxaa kaloo jira ardayda undergraduate-ka waxay leeyihiin nidaam ama isku xidh la yidhaahdo student union ama ururka ardayda ee jaamacadda guddoomiyey leeyihiin quruxdan iyo bilicdan aynu arkayno maanta dhammaanteed ardayda waxa weeye 95% ka shaqaysay wey waxaan imina u yeedhi doonaa marka ardayga guddoomiyaha u ah ardaydaasi student unionka ama ururka ardayda jaamacadda xamse cabdulaahi yuusuf oo sanadkan ahaa guddoomiyihii student unionka iyo ardaydii hawshan bay noo diyaarisay soo dhawow xamse mudanayaal iyo marooyin marka hore ku soo dhawaada hooyada jaamacadaha Soomaaliland ee Camuud anigoo ka hadlaya afka ardayda qalinjabinaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
ugu horeyn ilaahay baa mar labaad waxaan u mahad celinayaa kusnaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici oo safar gaar ah u soo galay munaasabada darteed isaga iyo wafdiga garwadeenka ka yahay waxaan ku soo dhaweynayaa gobonnimadii iyo gacatooyadii lagu yaqaanay guriga jaamacadda Cad waxaa la meelaawaana oo laga tagi karin mudnaanta iyo mahadnaqa uu mudan yahay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed isaga iyo maamulkiisaba waxaan leeyahay guulaystayaal geediga waday waxaa iyaguna qiimayn iyo qadarin mudan macallimiintii martabada sare gaarsiiyey maanka iyo garashada qalinjabiyaasha ugu dambayn waxaanan abaalkooga iyo awoodooda ka aamusi karin waalidiintayadii noloshooda iyo wakhtigooda u huray sidii aan wax u baran lahayn noloshana micno ugu samayn lahayn iyaga oo nala rabaa mustaqbal ka wanaagsan kan maanta mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin taariikhiya waa maalin ka duwan maalmihiina soo maray waa qalinjabintii dufcaddii 16aad iyo 20 guuradii jaamacadda Camuud haddaba haddaanu nahay ubaxii iyo astaantii jaamacadda Camuud haddii aanu nahay safiiradii iyo danjilayaashii jaamacadda Camuud haddii aanu nahay tacabkii iyo maskaxdii jaamacadda Camuud haddii aanu sidanno magicii jaamacaddii u horreysay ee Soomaaliland waxaan diyaar u nahay inaan door ka qaadanno horumarka horusocodka hiigsiga iyo himilada dalkayga waxaanu aqoontayada iyo waaraayarnimadayada ku darsanaynaa dadaalada loogu jiro wax wada qabsiga wax soo saarka wada jirka iyo wada noolaanshaha saldhigiisu yahay sidii looga bixi lahaa faqriga iyo dhaqaale xumida haddii aanu nahay qalinjabiyayaasha maanta waxaanu qalbiga ku haynaa shaqo la'aanta jirta balse waxaanu ku qasbannahay inaannu u samirno oo aan shaqooyin abuurno laakiin waxaan ka codsanayaa xukuumaddan iyo xukuumadaha soo socda si looga hortago duruufaha dhallinyarada ka hor yimaada xilliyada adag ay nolosha la halgamayaan mudane madaxweyne ku-xigeen haddii aanu nahay qalinjabiyayaasha maanta waxaanu jecelnahay inaan dalkayga u shaqayno ka shaqayno balse marka hore waa in ay dowladdayadu nala shaqayso oo ay ka shaqayso sidii shaqana loogu abuuri lahaa annaga qorshayahayaga iyo qasdigaygu waa inaan qarankan qayb ka noqonno horumarkiisa iyo hanaqaadkiisa waayo waxaanu ka qalinjabinaynaa jaamacad halkudhigeedu yahay geediga nabadda iyo horumarka dhanka kale waxaanu ku qasbannahay haddaanu nahay ardayda qalinjabinaysa maanta inaan qalinkayagii iyo aqoontii aanu barannay dib uga celinno deegaamadeedii iyo degmooyinkii aanu ka soo jeednay maadaama aanay ahayn jaamacadda Camuud meel ay wax ka bartaan dadka ku hareeraysan oo keliya mudane madaxweyne waxaad la socotaa inaan 16 sannadood la soo daalaadhacaynay caqabada dhanka nolosha ah balse waxaanu dareensannahay inaan kaga gudubnay dadaal iyo hal adayg haddii aanu nahay qalinjabiyayaasha maanta waxaan ka dhaga adeegnay saluugii iyo rajaxumidii ay muujiyeen dhallinyarada qaarkood ha fikirkayga iyo hal abuurkaygu wuxuu door muhiima ka ciyaarayaa isbeddelka dalkeenna iyo dowladnimadeenna sidaa darteed inaynu isku diyaarinno shaqada adag ee na sugaysa ee naga horraysa gebagabadii waxaan u hambalyaynayaa ardaydan hortayda fadhida ee qalinjabinaysa iyo xubnihii ardayda jaamacadda Camuud ee qaybta ka ahaa quruxda munaasabaddan ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusmaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici waxaan leeyahay gobolkii jaamacadda Camuud ha noolaato waayahay u mahadsan yahay gudoomiye xamse boosisha ka yar waa ka laga aflaxo oo waxa weeye ardayga soo mara ee halkan ka aflaxa waa arday hogaamiye noqda sida Sharmaake gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo halka fadhiyo oo halkan halkuu ka soo aflaxay ay tahay
khaasatan kursiga iyo mansabka uu ku hadlay hadda Xamsi